بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa aan salaam gudbinayaa dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliland dadka ku nool ayaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Kabtan Maxamuud Xuseen waxaan gudoomiyaha koowaad ee garabka haweenka ee heer qaran waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo dhibaatadan saameysay ee ragaadisay shacabka Soomaaliland inaan qodob shacabka uga hadlo hal qodob oo kale waxaan doonayaa inaan ka hadlo systemka failure ka noqday waxaas oo dhan ee dhibaatay maanta Soomaaliland ka taagan kalifay horta mid waxaan doonayaa inaan idhaahdo maayarka magaalada Hargeysa gobolkan aynu joognay ee Maroodi Jeex caasimadda waxa ragaadiyay ee buuxa maanta waa xashiish meel walba afarta koone Hargeysa xashiish baa ka buuxa xashiishka magaalada ka buuxa waxa weeyaan haddii imka roobdaana cudur baa ka dilaaci doona iyo xanuun laakiin maayarkii aynu u dooranay maayarka oo waxaan aragnay aan noqday qareen marka maayarkana waxaan leeyahay goorta qareenka loo doortay bal isaga ayaynu taa ka ogaan doonaa laakiin shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay xukuumadda kulmiye ee haddana imika doonaysa inay tartanto waxay noqotay failure dadkuna haday failure system uu ku dhaco amba ways caslaan amba waxbay bedelaan siyaasadda maanta Soomaaliland taagan waa albaab ka horgee maaha aniga inaad ii jawaabtaan oo ii soo jawaabtaan se waxa weeyaan haddaanu nahay xusbiga mucaaridka ah ee wadani wixii aanu dhaliilno inaa wax ka qabataan ee waliba facta ee xaqiiqa ee reality leh ee shacabka Soomaaliland noo maqraati furayaan waxaynu ognahay maanta jamhuuriyadda Soomaaliland dadka ku nool idinku waxa ku mashquusheen cod baa ku mashquusheen iyo sidii aad cod u heli lahaydeen lacagtii dollarkii Soomaaliland maanta dhex yaale idinka urursaday sixir bararka maanta yaalana idinka abuuray sababtoo ay tahay dollarkii oo dhan baa xareysateen si aad doorasho ugu gashaan waxa u muuqata xusbiga kulmiye inuu yahay mid aan shacabka dan ka lahayn laakiin shacabku wuu burburay maanta wuxuu taagan yahay heer dadkii joogay magaaladu iyo miyiga waliba barigu ha baabee galbeedka imika bay ku soo socotaay inay dadku isdaldalaan wal ciyaadu billah mas'uuliyad baa shacabka idinka saaran inta doorasho dadkii codka ku ridi lahaa qaar way isdaldalayaan shalayna dad baa dhintay oo wax lagu aasan la waayay mas'uuliyaduna waxay saaran tahay xusbiga kulmiye ayay saaran tahay waxa weeyaan in xukuumadda iyo xusbiguba dadka ay u kacaan baa muhiim dollarkan la xareystay in la soo saaraa muhiim maanta waxa weeyaan Soomaaliland halka dollar wuxuu marayaa 10,000 oo shilin shalay aniga ku sariftay 10,000 oo shilin ayay suuqa madow siinayaan waxa weeyaan suuqa madow marka 10,000 oo shilin ay siinayaan dadkii way burbureen dollarkii dadkii laga iibin maayo dad dollar lacagtii un baa la qaadanaya dollarkii un baa la qaadanaya dollar suuqiisa iyaguna kuma sii deynayaan waayo xukuumaddii dhamayd baa urursatay haddaba waxa weeyaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland kuwa maamulo ma aha siyaasaddu albaab ka horgee waa in aad waxaas oo duruuf oo taagan shacabku dhibaatada haysata maanta waa sixir barar dadkii hawdka intay la imanayeen waxba uma goynayso kuwa maanta Hargeysa ku nool way baqtiyayaan bisaarad baa haysa war xalkeen oo xal baa la idinka baahan yahay la idinkama baahna mucaaridka waxaan buunbuuninaya ma buunbuuninayno dadkii oo isdaldala arkaysan dadkii oo gaajo u baxaya arkaysan maanta waxa weeyaan Soomaaliland nin Suuriyaana oo yimid dadkii nagu soo qaxay oo professor article ka qoray wuxuu yiri jamhuuriyadda Soomaaliland waa laba shay baan ku arkay buu oo muhiima jamhuuriyadda labadaasi buu labaduba way dayacan wuxuu waxa muhiim ah oo laf dhabarta ah buu dumarka Soomaaliland dumarku 24 saacadood 6 ilaa 6 suuqay fadhiyaan buu way dhibaataysiin way tabcayaan waa dhibto oo dhan iyaga ku dhacaysaa buu kumaas way dayacan ta kale waxa dayacan buu ciidda Soomaaliland waxay ahayd hadii biyo lagu qaban lahaa mid wax soo saari lahayd oo wax keeni lahayd oo muxuu ahayd biyo loo qabto dadkan gaajoonaya ay kala soo bixi lahaayeen quudkii ay cuni lahaayeen ciidaasna way dayacantay buu ninkaasna waa runtii labadaasiba way ku dayacan yihiin jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba waxa weeyaan waad ogtiin xoolihii maalintii dadkii abaaraha heer qaran loo saaray in raashinkii uu ku qurmay istoodhada anigu kuwa dhaleecayn maayo laakiin xukuumadda iyo xusbiga kulmiye ayaan ku dhaleecaynaya waayo haddaan mas'uul meel saaro oo waxba qaban waayo waan bedelayaa waxa weeyaan haddaba xusbiga kulmiye waa in uu raashinka loo hayo doorashada in lagu galo dadkii doorashada gali lahaa doorashada ma dhacaysaan ma leeyahay idinkan mustanbeed samaystay
mustambeedan adduunka ka dhicin intii doorashada Soomaaliland ka dhicisay aanay dhicine oo way nin baa ku mahmaa wuxuu yiri maxaa habeenka sacabkii loo tumo hadaan xeeladu ku jirin de doorashada uma jeedaan ku shubasha wadaane laakiin horta bal dadka dhargiya oo bal shacabka wax siiya oo intaas oo waxa bixiseen asad oo Soomaaliland leedahay de kadib baa bixiseen madaarkii baa bixiseen oo maanta hadii madaarka Hargeysa Ilaahay nagu keenay dab qabsado dadku waxay baabuur bay ku imanayaan wadanka Soomaaliland Hargeysa ay ku soo galayaan tii baa bixiseen oo siiseen military waa hagaag aba bixiseen bal maxaa dadka ugu soo bedesheen dadku markay wax bixiyaan ee asadka ugu qaalisan bixiyaan imaaraadka siiseen waxbay nooma jiraan waa diyaaradaha caadiga kuwa ma hubka qaada kuwa caadiga military ma waxay u socdaan 3 hours diyaaradda ugu gaabisa 3 hours and 20 minutes bay u socotaa magaalada laahdo Dubai waxa weeyaan taasi waxay ku keeni lahayd hadii lacagtii aad ku soo qaadateen xaqul qalinka aad raashin iyo ku soo bedeli lahaydeen iyo dawooyin waxaan qabaa dal koona ilaa koona in ummadu dhargi lahayd hadaba nimankiinan xukuumadan noqotay xaalufiya noqotay ana waan buuxsaday aadna buuxso waxaan kula dardaarmaya aniga hay soo jawaabina jawaab looma baahna xal baa loo baahan hadii kale iscasila waayo markuu qofku failure noqdo waa inuu iscasilo amba waa inuu wax bedelo ta kale ina raadsataan yaa u jawaabaya hebel iyo hebel yaa Xuseen Ciidiya kan u jawaabaya war dadku waxba idinku hayaan oo idin daliilayaan annaguna waanu idin daliilaynaa waxa naloo doortayna waa dhibaatadan u arkayno ee maxal keentay mise raadisaan anaga wax noo jawaaba hal hadaa keentaan de waa si wanaagsan hadaa jawaabteeda raadisaan fadlan waxaan duleenahay iska casila xilalka oo xilalkan aad maqiiqantihiin ee afeel yar ku noqoteen iska bedela xorriyada qowlkana waxa leeyahay ninka la yiraahdo Mugabe Zimbabwe haysta ayaa waa kii dalka markuu qabsaday dadkii cadaanka beeri kala wareegay maalmaha kamid nin suxufi sidii bal cadaalad darrada ka socota Zimbabwe bal weydii dabeetana wuxuu yiri Mr President والله الله دبع عرّي بوري جار كيسي بقى أنتوا طلعيني كده ما يصحوا في جها أيوة كا كتورة ويا بحر مدحونا هرتي سبا لجوجو بله مدحونا بوري مستر بريسيدنت ومين أنا دي أركين سيد اللي يجليو بحكوا أنتوا سوا جاي كيب يوم ما الشط أفكار حلو لأن ما كان توش كيدن كوي في صحافة ضد كي وش قيسا وما ضرنا بوش قيسا ضد كان ما كان صحفيين تعانا يا حرية القول كا دليله هذا بيشيء يعني هذا كنت ذا لساني للذين كيب يوم ما الشط حريصان iyaguna waxaan idin leeyahay hawshooday gudanayaan marka waxaan leeyahay dalku maanta wuxuu ku jiraa marxalad adag ayuu ku jiraa waxa kale oo la yaabanahay wasiirka warfaafinta goortu noqday CID-da magaalada lagu soo daadiyay dhar cad ahayd maalintii dadku suuqa xidheen bisaarad daraadeed ka buutalanay dameynaan arag wasiir kabtasha laakiin wuxuu noqday uu isna CID bal dadkan xilalkoodii goorta ay ka gudbeen waxaan leeyahay dalka iyo dadka bal u tura oo umada u tura oo ilaahayna ida abuurta ka yaab mas'uuliyadan waa la idin weydiin doonaa wabillahi tawfiiq imika xigeenka labaad ee garabka haweenka heer qaran ee xisbiga wadani halkan waxaan maanta u qabanaynaa shirkan jaraayid xaaladda dalka maanta Soomaaliland uu ku sugan yahay hadii aanu ka hadalno horta ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay inaga soo jabiyo abaarta maanta dadkeena iyo dalkeena aad u saameysay ay aad ugu dhibaataysan yihiin taasoo uu u raacay maanta sixir bar aan laxaadkiisa aan la koobi karin oo dadkii reer Soomaaliland maanta aad kuwii dalka gudihiisa joogay aan miyiba joogin ay saameysay dawladuna gabigeeduba ahaanteeda ka gaabsatay inay wax ka qabato sixir bararka lacagaha qalaad ee maanta iyaguna ina saameeyay inay hoos u dhigaan dawladdu way ka gaabsatay baan leeyahay waxaan kaloon maanta shacabka reer Soomaaliland ee aad ugu sugan yihiin dhibaatooyinka haysta waxa weeyaan maciishadii cirka gaadhay maciishadana waxa u sababan oo dhan laha dawladda waayo iyada ay ganacsatadii cashuur sicirka ku geysay 2 sano ka hor bay ganacsatada reer Soomaaliland yiraahdeen $1 ee anaga dawladdu nagu darto anagu shacabka ayaan ku daraynaa shacabkuna markii hore way dhayarsadeen se maanta ayay tala ku baahday waxa waxay dawladdu uga qabanaysaa ma jirto shacabku ha gilgishaan baan leeyahay dawladani waxyaabaha ay ku ballan qaaday way tala xumaysataan iyadana leeyahay waxa weeyaan
iskuuladii markaynu raahno bilaashka ay yiraahdeen wax ka jira ma jiraan iskuuladii waxa laga qaado ardaydii waxa laga qaadaa secondary-ga iskuulka buug $30 ardayga danyartii ma iibsan karo mana awoodo $30 ee ama agoonka ah inuu iibsado taasna waa talaxumo ay soo kordhiyeen ardaydii iyo shacabkii danyarta ee reer Soomaaliland waxa jirtay maalmo 2 sano ka hor ay dhikaada soo qaadiyay dugsi sare ina yar muxuu ahaa eedkeedii ayaan ka doonay baan leeyahay wasaaradda waxbarashada waxay igu tiri $7 keen kaakii ka horeeyayna 20 oo Soomaaliland aan bixinay $7 markii aan nidhi hoona waxay nagu yiraahdeen orado dahabshiil ku shub waxaan weydiiyay dahabshiil ma baankii Soomaaliland ba marka aad leedahay dahabshiil ku soo shub $7 warqadana dib iigu soo celi kadibna ay dhikaarka qaado markaad leedahay dugsiga hoose dahabshiil ma baan biidiyay miyuuna wadanku baan lahayn waa talaxumada ka dhacday hadda dawladda nimka marka waxaan u sheegay shacabka reer Soomaaliland ilaahayna ha u gargaaro iyaguna isbedel doon ha sameeyaan insha Allah bilmillahi kariim iyaga gacantooda wax ku bedeli